الله وبركاته وحسوا كل سلام يا مرشد كسوق القشي برنامج كان سومالي تكنولوجي سميت وأي نص ديالسي وكالة هرمون تكنولوجيا هي سومالي إنوفيشن هاب مركي لبعض وبرنامج كان لقبته مركي كواد وكدعي جروه سلسلة بشركة سمتل وكهاليو أي وضع القشي كانوا من أحد الشركات اللي سورتجلي إنه برنامج كان سيقبصومه وواحد بدن أي دكتور وداعان ولو صبر نجمعش ما أنت نسيت ما نوع كده على البرامج كي قيب وإن كقاعدني سورتجلي مدرسة إلا حتى نديارنا هاي رمتي سجارة نقوم هالعلنا يا سومالي إنوفيشن هاب وبرامج كان سورتجلي سين ونوقف صومه كشركة هان أدمن وقف حسن هاي ونادي في جلنا جود هان تيوم كالكوسوغان برامج كاسو قصير يدلنيرتي سو بندقتay waxyaabaha cajiibka oo ay halkan nugula wadaageen oo ahaa barnaamijyada ay sameeyeen dhinaca sunojeed ah haday ahay qaabkii suuqgeynta haday ahaan lahayd adeegyada kale ee maaragtay magaalada u baahan tahay oo ahaa adeegyada delivery-ga adeegyada nadaafadda dhiigoob waxyaabo badan oo meesha lagu soo bandhigay soo koobi karayo runtii aad baan ugu faraxsanahay waxaan u maleynayaa mar kasta oo qof ka mid ah mas'uuliyiinta halka ku sugan aad maqashaan samtel wuxuu cusub baad garanaysaa in meeshaas ku soo kordhi doono waxaad ogtihiin anna waxaan isu haysanaa hooyada isbeddelka isgaarsiinta Puntland waxaanu mar kasta keenaa iyadoo aanay dadku 4G haysan waxaanu ahay shirkadii ugu horeysay 4G dadka u keentay waxaanu ahay shirkadii ugu horeysay oo adeegyada bilaa khidmada dadka u keentay waxaanu ahay shirkadii ugu horeysay oo halkan waxaanu isla wadaagayaa gabdhaha wax ku soo bandhigay ilaa hadda waxaanu haysanaa iskoorka shirkadda kaliya ee gabdhahooda ay mas'uuliyiinta yihiin oo ay u kala qaybsan yihiin da'yartuna ay mas'uuliyiintooda ay ka kooban yihiin sidoo kale waxaan nahay shirkadda kaliya oo maamulkeeda malaha maarayahayaga ugu weyn waa da'da kontonaadka inta kale waa kasii da'yar tahay taasina waxay fursad u suurtagelinaysaa dhalinyarta halka ku sugan inay nin kasta oo nagu soo biiraa uu yahay qof chance u heli kara inuu samtel maamulkeeda ka mid noqdo waxna aanay ka xigin isaga iyo dadaalkiisa ay tahay runtii shirkadda isgaarsiinta ee samtel waxaanu dhalinyarada halka joogtaa ugu bishaareynaa hore waxaan noo joogtay dhalinyarada applicationada sameysa qayb ka mid ah oo haddaad aragteen adeegga sahay aakhiro haddaad aragteen dukaankaal haddaad applicationo badan aragteen oo ay shirkadda samtel maalgeliso oo la isticmaalo aanu dhalinyaradii u sameynay inay nala shaqaystaan ma aha inaanu maaragtay maalgelintaasi fasaxayno ma aha intaanu qalab inta ku wareejino fasaxayno shirkadda macaamiisheeda cid kastoo isticmaasha waxay leeyihiin faa'iido wadaag shirkaddeena share ka yihiin qof kasta oo applicationkiisu nuqseeyo oo shirkadda samtel u aragto in isaga samtel iyo macaamiisha isku xiri karaan oo barnaamijkaas uu yahay barnaamij samtel xaggeeda ka iibsamaya macaamiishan u cuntamaya diyaar baan u nahay inaad shirkadda kula soo biirtaan oo aad shirkadda qayb ka noqotaan faa'iido qaybsiga la heshaan sidoo kale shirkadda samtel waxay xiriir dhow la leedahay Somali Innovation Hub oo halka soo qaabisay sanadkii labaad iyadana waxaan rajeynayaa inuu xiriirkaygu sii wanaagsanaado inta uu barnaamijkani sii socdo runtii waxa aan diidanaa inaan idinka dhex galo intii barnaamijku socday oo dhalinyarta soo bandhigaysa afkaartooda iyo horumarinta teknolojiyadda inaan barnaamijkooda dhex galno laakiin waxaa goobta inoo yaala qalabkii 4G-ga oo aanu 60% hoos u dhignay munaasabadda Somali Technology Summit darteed oo meesha inoo yaala oo halku $60 ka ahaa aad $25 isagoo 12 GB kugu jirto aad ku helaysaan isagana waa fursad xagga dambe noo taala sidoo kale shirkaddu waxay iyadana ay meesha idin keentay 4G SIM cardski 4G plus oo iyadana free ah oo meesha idin yaala isagana waxaan rajeynayaa inaad ka sii qaadan doontaan waxaa sidoo kale shirkadda samtel Puntland idinku hambalyeynaysaa guud ahaan reer Puntland inay fiber optic ugu weynaa geeska Afrika oo dheer la yiraahdo ay shirkaddu ugu deeqday magaalada Boosaaso iyo Puntland inay noqoto hoyga bixinaysa fiberka Soomaaliya oo dhan ilaa East Africa insha Allah oo aanu sanadka cusub ka daafuri doono magaalada Boosaaso shirkadda samtel waxay mar kasta diyaar la tahay isbeddello badan oo ay ku soo kordhi doona insha Allah oo ay doonayso inay la wadaagto macaamiisheeda waqtiga oo aad u kooban darteed waxaan rabaa inaan cid kasta oo meeshan nagula sugan aan u sheego oo dhalinyarta wax soo bandhigaysa intaad wax soo bandhigaysa oo maaragtay wax soo bandhigaysana diyaar baan idin nahay oo waxay la jooga technicalkeygii waxaan weyn support garanaynaa sidaas leeg albaabadeedu waa idin furan yihiin cid kasta oo wax samtel ay ka wada shaqayn karaan haysa ama wax ku saabsan internet ama wax ku saabsan waxaan macaamiisha idin gaarsiin karno albaabadeedu waa idin furan yahay diyaar baan idin nahay shirkadda samtel waxay idin leedahay hambalyo waa mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu